afartii sano ee la soo dhaafay noloshaada waxaad doonaysaa inaad wax ka bedeshid sanadii 2020 waad ku guul daraysatay 2021 isagana waad ku guul daraysatay 2022 waad ku guul daraysatay 2023 oo imikana soo dhaafayna waad ku guul daraysatay waxa weeyaan imika waxaanu galnay sanad cusub oo waxa weeyaan bishiisii koobaad aynu ku jirno sanad cusub markuu yimaadana dhammaan bulshada qaybaheeda kala duwan ama Soomaaliya haato ama waxa weeyaan dad kale ha ahaadaane waxay isku dayaan inay deegaankooda wax ka bedelaan sida ogtihiin deegaanku laba u kala qaybsamaa waa deegaan maxalli oo aad ku nooshahay waxa weeyaan sida wadamada ama qaaradaha deegaanka kale waa deegaanka kugu hareeraysan haday noqoto asxaabtaada waxaad subaxii qabatid habka aad u fikirtid waxa aad YouTube ama Facebook ka daawatid iyo buugaagta aad akhrididba dhamaanteen waxa weeyaan waxa guulaha inoo horseedi karaya oo waxa aynu waxa weeyaan waa deegaanka aynu inagu hareeraysan haday noqoto asxaabteena cid aad la sheekaysato buugta aad akhrido waxa aad daawatid sanada 2024 waxa weeyaan waa inaad diyaar u ahaatid inaad waxa weeyaan noloshaada aad isbedeshid 3 sano ama 4 sano hore la soo dhaafay diyaar ma aad ahayn oo waxa weeyaan sanadkii baa ku soo galay kadibna waxa tiri waan isbedelaya laakiin wax balaan ama waxa weeyaan mowqif oo cad ma lahayn qof kasto bini aadam ahi waa inuu waxa weeyaan garanayo meesha uu socdo si uu waxa weeyaan uu meesha uu hadhow isu tijaabiyo dhaho ma gaadhay mise ma gaadhin buugan maalin dhawaad akhrinayay wuxuu ka hadlayay in bini aadamku aanay ku guul daraysan qaabkii shaqo loo qaban lahaa laakiin ay ku guul daraystaan sababta ay shaqada u qabanayaan for example qof aad arkaysaa dhiganaya English ama IT ama waxa weeyaan psychology oo kale qofka markaad weydiisid maxaad waxaan u dhiganaysaana wuxuu oranayaa waxa doonaya inaan ku shaqeeyo يعني shaqadu waa wax yar oo waxa weeyaan laakiin waxa jira wax ka balaaran oo kugu riixaya kugu qasbaya inaad waxan dhigatid first of all waa inaad ogaatid missionkaagu waa maxay what's your meaningful mission waxaana doonaysaa aad u halgamaysaa ee waxa weeyaan aad doonaysaa noloshaada inaad ka bedeshid waa maxay qof kasto bil aadam hay waa inuu yeesho life values ama qiyam nololeed for example maanta hadii lagu dhaho Suhayb waa kuma hadii la dhaho Suhayb waa macallin ka shaqeeya gobolka Togdheer aniga iimaad sheegin laakiin waxaad sheegtay mihnadeyda ama waxa weeyaan waxa aan imika ku shaqo galo laakiin hadii lagu weydiiyo hadii aniga la weydiiyo Suhayb waa kuma waxa sheegaya qiyamka nololeed ee waxa weeyaan nolosha dhamayska tiran waxaan ku qiimeeyo waa in nolosha ku lahaato pillars ama waxa weeyaan rukniyo ama arkaan aad ku qiimeynayso oo doonayso waxa iyo waxaas marka aan helo ama marka aan si wanaagsan u taago ayaan oran karayaa waxa ay qof dhameystiran oo nolosha guuleysta qof kasto muslim oo muuqaalkan daawanaya qiyamka koobaad ee markasta leeyahay inuu Ilaahay subhanahu wa ta'ala xiriir wanaagsan la yeesho oo waxa weeyaan waajibaadku Allah subhanahu wa ta'ala ina farayna sidoo uga soo baxdo wixii waxa weeyaan maxruumaad ee Ilaahay naga reebayna aynu waxa weeyaan ka dhowrsanaano iskaga tagno waxa weeyaan waa bilarka ama qiyamka koobaad ee qof kasto muslim ah waxa weeyaan doonaya inuu yeesho wixii inta ka dambeeya inta badan wax la dhahaa qofka waxa qeexa waa 7 qiyam waxa weeyaan waa 7 life values marka markaynu ka saarno 6 kale adiga ayay ku yaalaan aniga waxa soo galay kalabaad ina waxa weeyaan jirkeygu uu caafimaad qabo oo qof caafimaad qaba aan ahay laakiin adiga wax kale ku soo gali karay waxa laga yaabaa in dhaqaale ku soo galo waxa laga yaabaa in family ku soo galo waxa laga yaabaa in waxbarasho ku soo gasho yani lama qiimeyn karayo marka waa inaad garanaysid ama aad ogtahay life valueskaagu qiyamkaagu waxa ay yihiin inta marka aad ka soo baxdid waa inaad garanaysid meesha aad u socotid for example qof aad arkaysaa markuu sanadku u bilowmo wuxuu oranayaa sanad weeyaa waa 12 bilood 12 bilood waxaan doonayaa waxa inaan qabto runtii hadii aanad hadafka aanad kala jajabinna hadafku wuxuu noqonayaa sida 3 buug 4 buug oo sal la isugu daray oo wax weeyaan dhumuc leh oo wax weeyaan aanad akhrin karay maanta 4 buug hadii la isku daro for example scientific books 4 buug hadii la isku daro akhrin kari maysid laakiin waa inaad tiraado waa sanad cusub waa 12 bilood sidee baan u kala dhigi karayaa sanadka laba u kala jabi 6 bilood iyo 6 bilood waxa 6 bilood hore waxaasaan insha Allah focus gareynaya aan qabanaya 6 bilood dambana hadafka kala qabanaya kadibna tracking samee oo isku hubi inaad waxa weeyaan isku dabagal inaad wixii qabatay iyo in kale for example usbuuc kasta waa inaad maalinta jimcaha fariisid tiraadid balafteeda xisaabinaya dhinaca adduunyo dhinaca aakhiraba kadib waa inaad soo qaadatid qalin iyo buug meel la fariisatid waa inaad deetana aad waxa weeyaan tahay waxa ma qabtay projectkan doonayay inaan bilaabo ma bilaabay waa maya halka wax ma ka bedelay
marka isbuuc kasta sidaa kuwa isbuuc bishi waxay ka kooban tahay 4 isbuuc kadib 4 isbuuc marka soo goosaysaa bisha waxaan qabtay kadib sidaasaad ku wadaysaa ilaa iyo December ama bisha 12aad ee inta badan dadku ay hamabaraan aad u tagtid oo adigu tahay sanadkaygii waxaasaan soo qabtay anu sanadkii 2023ka waxa weeyaan bishiisii 6aad ama bishiisii 5aad baan filayaa ayaan muuqaal samaynta joojiyay oo aan kanaalkeenan aan waxa weeyaan completely iska dhaafay oo maanta waxa weeyaan dib u bilaabay 2023 waxay hirgalay inaan college magaalada Burco ka aasaaso kaasoo lagu dhigto luqadda Ingiriisiga hooyo dad fara badan ay ma sha Allah ay aad uga faa'iideysteen waana waxaan ku faani karay 2023 ee qabsoomay marka waan qiimeynay mar walba oo waxa weeye limit bay ii lahayd bishii shanaad markii soo gaaray baa yiri 6 bilood ee hore waxaas ku qorshaysnaa wixii halkan iska dhig 6 bilood dambana waxaan u tag qodobka saddexaad ee ugu dambeeya waxa weeyaan ee ugu muhiimsan runtii waa inaad samaysid caadooyin maalinle ah oo wanaagsan oo waxa weeyaan for example maalinta aanad waxba haynin waad iska seexan karaysaa laakiin maalin kasta isku day inaad wax qabatid oo waxa weeyaan tiraahdo waxaas ay qorshaysnan oo waxa weeyaan qabanaya daily highlights wala dhahaa afka luqadda Ingiriisiga daily highlights bal gudhaa buug yar waa inaad lahaatid waa inaad daily highlights kaaga ku guratid oo tahay waxaas bari qabanaya haddii Allah awood la ka dhigo dad dhimatidna waa dhimatayba marka daily highlights kaas waxay ka caawinayaan inaad اسبوع markaad dib u fadhiisto maalinta Jimcaha aad tirahdid maalinta Sabtida waxaas ay qorshaysnaa ma qabtay Axadii waxaas ay qorshaysnaa ma qabtay Isniintii waxaas ay qorshaysnaa ma qabtay noloshaad baad dib u raacaysaa oo waxaad doonaysaa inaad ogaatid waxan ma qabatay mise maadan qaban runtii hadaf ama goal marka la dejinayna goalku hal rule kama soo haro ama hal sharci kama soo haro goalku waa inuu waxa weeye tracking lahaado waa inaad goalka ku daba jirtid oo waxa weeye isku xisaabinaysid qaabka qolo la isugu xisaabiyaano waa time frame waxa weeyaan duration wana tahay waxa weeyaan maalinta safar maraya waqtigaana waan qabanaya kadib wixii waxay noqonaysaa wax midho dhal leh oo adiguna waxa weeyaan tahay waan qabtay ama maan qaban for example waxa jirta qof marka sanadku dhamaado oranaya waxaan doonayaa inaan ahdaaftiisa ku qoraya waxaan doonayaa inaan waxbarashadeeda kobciyo waxaan doonayaa inaan business bilaabo waxbarashada inaad kobcisid waa wax general waa wax waxa weeyaan baaxad weyn runtii aqoontuna maanta marka sanad bishii 12aad ee sanadka 2024 loo yimaado 2025 galaysid waxa weeyaan aad isu diyaarinaysid sanad cusubna ma oran karaysid aqoontaydii ma dhisay waayo markasta bini'aadanku inta uu carrada guudkeeda saaran yahay wuxuu u baahan yahay inuu waxa weeyaan isdhiso oo waxa weeyaan hadday noqoto dhinaca aqoonta marka haddii laakiin aad oran lahayd waxaan doonayaa culumta IT inaan barta iska dhigo waliba qaybta computer science ama programming waxa jeceshahay ku xidhan tahay maanta bisha 12aad soo gaadhay xornaysa ma ku wacanahay ma tigrey ha laakiin hadda tahay waxaan doonayaa inaan aqoonteeda dhiso aqoontii aad bay u ballaaran tahay laga mana geeyoodo aqoonta marka waxaan rajaynayaa insha Allah muuqaalo fara badan soo wadnaa oo muuqaalkan qura wuxuu noqonayaa dhextaal kanaalkeena si toos ah baan ugu soo laabtay إن شاء الله مركا هالكم ما يكون عندنا أدبن سلامية سند ونكسب مدير الجنية